السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni Revit Architecture. qaybtan waxaan ku jeexjeexi doonaa room tag with dimensions oo ah inaad heli karto cabirada qolkaaga qaab dhirri balaxa. qaybtan markaa rabto kuma jiro room tag iska diyaarsan ee Revit family. sidaa darteed as a family ahaan ayaan u diyaarin doonaa annagoo isticmaalayna formula. marka la soo cashirka haday tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato subscribe saar channelka ha iloobin inaad like saarto videoga si walaalo badan u gaaro. halkan waxaan fariin baahsan uga dirayaa dhalinyaro badan oo cashiro online ku bixiyo ayagoo khibrad badan u lahayn software-ka Revit. fadlan si free ah halkan uga baro Revit Architecture dheelitiran waliba si lagu sharaxayo khibrad ay ka muuqato ku soo dhawaad cashirka. waxaan galeynaa qaybtan marka waxaan rabnay inaan ku sameeyno hadda lacala kii hore waxaan ku soo sameeynay tagiskii hore aan sameeynay only names magacay kaliya ku qorinay kan waxaan isku dayeynaa marka cabirka caadiga kan isku shaas oo kale inuu si nadiif ah u soo qoro kay marka cabirkan caadiga aan soo qorinaa dimension kordhufo create similar intervals kan individual noga dhig all faces halkan iyo halkan oo kale 4.2.49 halkan oo kale asagana waa 2.12 cancel. okay qoraalka kaliya naga tir room tag meesha noo yaalo. okay waxaa sameynaysaa file new family English kan marka nagu dhufato annotations metric room tag oo binoo leedahay kay kana ku soo baxay marka. okay marka label aan ku sameeynayna meeshan label halkaas oo kale oo centerkaas aan ku dhufaynaa labelka u baahan tahay muxuu yahay waxaan u baahanahay name room name waxaan ugu soo galayaa name kan oo kale aaga dhigata bedroom. okay halkaan oo ka soo baxay soo kan copy leenahay control c control v kan copy-ga marka kor dhufanayna edit label. okay name-ka kan waa bixinaynaa waxaan ku bedelaynaa meeshaas length marka length iyo width midna ma leh waa abuuraynaa waxaan ku abuuraynaa formula fx taas aan ku dhufanaynaa meeshaan waxa ku qortaa length adigoo mar walba l weyn ku bilaabaya halkan numberka bedel length ku bedel formulada description ka hoos aadin soo dhigi doonaa formuladan aan gelinayaa parameterka copy control v formulada waa geliyay. okay sidaas length-ga ku samaysan hadda waxaan sameynaynaa width-ka w waa ina weynaysaa halkan oo numberka length aan gelinayna halkan waxaan noo soo qaadaa area loo qaybiyay length. okay sidaan ayuu isku bedelay muuqaalkan uu yeeshay edit label haddana aan dhahno halkan prefix-ka ku qoran tahay ayaa wax ku qoraysaa x waaweyn adoo ula jeeda lagu dhufto kale space bax. okay saanu ku noqonaya. okay fartaan iska habeena marka bedroom kaas oo kale fartiisa habeynayna edit aan leenahay transparency waxa ka dhigtay textigaas size kan waxa ka dhigta 2.5 oo kale plugin waxa ka dhigta red. okay load into project waad tijaabinaynaa room tag-ga. okay waa kaga wadanaa 2.49 iyo halkaan oo ah 2.12 waa isku dhaweynaynaa fartaan. okay qaybtan waxay kor u qaadno teeda kala farta
2.5 كان ugu badan tahay takasi size ka 2 ka dhig bold aan ka dhigno apply okay loading the project waka marka Janus waxa haystaa hadda wixii ka dambeeyo inaadan ku wareeri doonin sida loo abuuro cabirka dimension caadi isku dhigin oo 9kii cabirkii wata okay marka waa save gareysanaynaa meel gooni ah ayaan dhiganaynaa nagu ceel asaga waa kana waxaan leenahay file save as family waxaan la baxnaa room tag with dimension okay save node marka waxaad rabtaa inaad soo geliso lacala waa weysay meeshaan ka dhex weysay ama another project kala sameysay waxaad leedahay annotation tag aad leedahay load tagis aad ku dhufanaysaa load family oo kana room tag with dimension saas ku soo gala okay aad leedahay java wadataa marka waa dul saaraysaa magaca kor dhufanaysaa kadib waa bedelaysaa two lines كده 3.09 qaybtan kala 5.29 saas ku dhameystireen hadda wixii ka dambeeyo هذا بالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.